maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa meel adag waxay iska taageen ku darsiga labada sano ee uu ku dhaqaaqay maamulka madaxweyne Farmaajo. Qoraalo kala duwan balse isku ujeedo ah oo ka soo wada baxay madaxtooyada labada maamul ayaa lagu cadeeyay inaysan marnaba taageeri doonin talaabadan. Dowladda Jubbaland waxay cadeynaysaa wixii ka dhacay golaha shacabka ee muddaxileedkiisu dhamaaday inaysan wax sharci ah ku dhisneen. Arrinkaasna wuxuu dib u celinayaa hanaanka geedi socodka dib u dowladnimada dalka ayaa lagu qoray barta Facebook ee madaxtooyada maamulka Jubbaland. Jaamac Dabarani oo ah hafayeenka madaxtooyada Puntland oo sharci darro ku qeexay dheeraysiga ayaa xusay in mowqifka maamulkiisa oo faahfaahsan uu dib ka soo bixi doono mashaacin waqtiga ay ku dhawaaqi doonaan. dowladda Puntland waa ay ka xun tahay wixii dhacay waxay ahayd tallaabo sharci darro ah oo uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday. Puntland dib ayay ummadda Soomaaliyeed ula soo wadaagi doontaa mowqifkeeda la xiriiro wixii dhacay ayuu yiri Jaamac Dabarani. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda waddanka ee Muqdisho iyagoo ka qayb galay wadahadaladii la doonayay in lagu soo afjaro ismariwaaga ka taagan doorashooyinka Soomaaliya. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa inay qabsoonto 8 February ee sanadkan balse ma aysan dhicin sababo la xiriira in madaxdu ku heshiin weyday qaabka loo qabanayo arrintaasi. Jahwareerka meel sare gaarsiisay. Aamina Abiyan, warbaahinta Nation, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.